هاي بالليل ما تروح نوقع سيلع 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 عندك متلف في هذا والله الانسان عندي قبل كويس دني مو يقول عليه عياري ما توصل ما صعد باص سيلع قنيمه يخلر كده ciidankan aad u jeedaan waa ciidankii aan idin sheegay muuqaalkii ka horeeyay aan idinku soo gudubiyay idhi ciidamo beeleedyo kuwa madaniga Soomaaliland looga yaqaanay xilligii dagaalkii Sool ka socday la aas-aasay beelaha Isaaq ay lahaayeen oo lagu daadgureeyay magaalada Sayla iyo sidoo kale to deegaanada ay ciisuhu degaan ee gobolka Salad عدين أيه أطهي مقالك كوري دم صداو حجب بدن أيه مقال كاسكو قاعد نجي عيدا كان مركا وعيدا ما كترسم كوا ماليشيا بلدية ذا مركز مدني قالوا جاي قانو جودها Somaliland قبل كسل أيه لجودة تقولي يجي يعرفوا كم مغليسا وانتو نستعيدونا هل كلا جاي وحناك كلا تهربا إن ندين لو ذاقو تطبيق طبعا أضيء نقامات أوليبا وكتشلو واس كجود باشا جبريل أبوكر أيها حبسك الله تحابي مانتا قولك القبيلة أضياشي تشوغي اسم لها دقن لها وحبنا لقبتك كود وقوة وينا وقود تألو وينا أما اسم كاها حلقف لقبتك بالله كرا حلي أي قوب شرع اسكوكوي مادين وباقيدا مالغو هريريي وأن لو ذا تشيبيو كتينة دي تلقوا ضحري أيها توس حبسك قولك القبيلة أيها اللود دادعيي أو لغو حريي هذا محل الله حرية محيط الصواب تواضي نقبضية داس الله بكسدي محاك الصعود القبيلي ودياش محي سمين ربين وان سوق هذا دونا العكلة حسوسين دولة أما حكومة هذا عبد الرحمن عرو هذا مدة السنة كي بيش جوكتا سنة يا هل بالبيت سدحية طوان بلاد بيجوكتا ولبا بيش سدحية طوان ولي ومرة معني هبينا ودبا أنت أي جوكتو ودي نقبضية الله حري صدم بيكرو نافيان ورياشا لحرينا أفرتن كي يجنا كلوين حكومتي هورا وحلقوا يدين إيه مصبحي وحاد سميسي وحوي يدك وحاد كوس سميسي عبورين على جبلين يا حرب مركل أوروريو أضي نقامات كعراء وحوي أوحرينين كليلا هذا مصبحي تضبط السنة أوجوجي إيه ورياشا أوحرين مصبحي تضبط السنة أوجوجي إيه عراء تضبط السنة وحكوا سدح يتوانك بلاد وجو أضياشة وحري ورياشة وحري عرو أيها سدح جر كوزو لبا جبار مية كوزو سدح جبار مية محيط أي سببته معيرها للنعبية ما تدك أياك عصر وموصي ربان حالته سيدي وحو جرتان بل يدنا وانفتي من دورنا سودو هذا إذن كنا أركتدنا يقولوا ذاك قريبتا كومنتيكا أنكم بالله ciidankii hordhacay arkayseen in idin soo galiyay waa ciidamo beeleedyo ka tirsan ciidankii madaniga loo yaqaanay ee beelaha Isaaqay aasaaseen xilligii dagaalkii ka socday la sacaanood ciidankii Somaliland la jabiyay ciidamo la aas-aasay weeye waxaan ogsoonay dufcadii labaad iyo koobaad iyo saddexaad adu waji saddexaad bay u sameeyeen in qaybo badan oo ciidanka ka tirsanaa in lagu diray ciidanka militariga laakiin qayb badan baa wali sidooda hubka u haysatay oo waliba intooda badan ka amar qaadanaysay sida la sheegay ninka la yiraahdo boqor buur madoobe ka amar qaadanaysay ciidankaas sidii ay u dhanaayeen ayaa la qaaday oo loo daadguriyay gobolka Salad muuqaalkii ka horeeyay ee 8 saac baxay ayaan idin kula wadaagay xogo badan oo soo gaaray oo dhanka Salad iyo ciidanka lagu daadguriyay haddana muuqaalkan clipkan ayaa bada cadayn idin ku filan dad badan baa laga yaabaa inay dhahaan cadayn aw ciidankii waka عدينتي سنة تاسع إنه وفران إذا ما بلادية هالكا لقيه بقربون مذوبنا هراي بوربعين توقع شيء قويري حبط بسنك كجلينا عد أن كأجلنا إن قبطوا حبوك حرز حتى عران قبن كرين أو يدين كان قبن كرين أو عيسان قبن كرين أو عدول بعضي بعتين قبن كرين صوبتها جمهورية الصومال ببلدي كويايبي سلا أوجد الله ما قبن كرم ويلو ولا ما قبن كرو الصومال بوده هذا حير عيسى هذا هو حير دقن يا حير دقن هي جمهورية محايس كجلي حير دقن iyo dawlad maxay iska galay xeer dhaqan baale dawlad dastuur bayleeda marka maxay iska galay mise waxa ku qoran buugan Soomaaliland wax la dhaho ma jiro jamhuuriyad wax la dhaho ma jiro dawlad madax banaan noqon karto isaaq baa iska haysta ma waxaas ku qoran maya kuma qoran waxa ku qoran xiise dhaqankiisa iyo waxa weeye xeerkiisa iyo sidoo isku xukumi lahaa
iyo taariikhda uu leeyahay iyo waxa weeye sadanooyinkii soo jireenka ahaa halgan wuxuu kaga jiray Soomaalida iyo sidii waxa weeye uu ula dhaqmayo qowmiyadaha kale ee dariska sidii ula dhaqmi lahaa waxaas ku qoran waa dhaqan xiise sidii u dhaqmi lahaa dal iyo dibadba meel walba ha jooge ayaa ugu qoran waa dhaqan ma aha diin ma aha dastuur ma aha dawlad waa dhaqan weeye dhaqan reer ay samaysteen way reer walbana dhaqan uu leeyahay Soomaalida kale oo dhanba dhaqan way leeyihiin qoys aan dhaqan lahayn ma jira iyo jufo iyo qowmiyad iyo qoys iyo qabiil aan jufo aan dhaqan lahayn ma jiro laakiin dhaqankooda way qorteen oo iyagu waxay kaga duwan yihiin way nadaamiyeen oo buug bay u sameeyeen oo duniday ka gadeen oo meel dheer bay gaarsiiyeen oo dhaqaalay ku bixiyeen taas bay marka kaga duwan yihiin oo dhaqankoodu kaga duwan yahay si kastoo noqotaba magaalada Saylac laguma qaban karo xeer ciise waxay dhalisay xiisad xooggan iyo sidoo kale in qolo walba awoodeeda ay markaasi tiigsato isticmaasho ayay sababtay wali la isma farasaarin laakiin cudud sheegasho ciidan iyo abaabul dhinac walba waa ka jira ciise waa diyaar garooya xafladaas markii la hor istaago oo 5 bisha la gaaro hadda markaas cid hor istaagtay jawaabtay kaga bixin lahaayeen ay u diyaar garoobayaan dulmina ma wadaan waxay rabaan iyagu inay xafladooda qabsadaan si nabadgelyo ku qabsadaan waxa weeye Soomaaliya gudaheeda ku qabsadaan magaaladooda Saylac oo 19 uwaas ay ku soo caleema saareen oo ku soo caanashubeen inay ku qabsadaan bay rabaan magaaladii 19 uwaas martigelisay oo hal beel oo ciise la yiraahdaa hadii la yiraahdo laguma qaban karo xafladaada kuma qabsan kartid oo adiga malihid oo kuma dhacdid oo aanad marti tahay balka warama 19 uwaas markii lagu caanashubay xagee la joogay dadka hadda sheeganaya ee ku haysta xagee joogeen xagee la joogay Samaroon iyo ciise inay daris yihiin oo Samaroona uu leeyahay boorama iyo aagaas oo dhan uu ka taliyo kuwana ay Saylac ka taliyaan te siyaasadayba ku caday Soomaaliland naftarkeediya matalaadayba ku caday matalaada iyo sida wax loo qaybsaday bay ku cadahayba maxaa marka waayay la isku qaqabsani oo colaad loo hurini oo ciidan loogu daadguray dadka oo loo cuburini oo loogu cagajuglayni oo loogu hanjabi oo carku qabsan loo leeyahay oo loo carcarayn manreega la carcaraya war ma dad rag iyo rabbi laba la carcaraya oo jamhuuriyada oo waxa weeye nation way waa nation ma aha hatta ma hayo qowmiyad way dhaafeen waa nation waa dad dawlad dhan oo Djibouti ilaa Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya degan way taas horta waa mid marka ciidan waxba laga qaadi maayaan waxaan dhila xabad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay ka daaya dadka fitinta iyo colaada iyo horinta hal la daayo xeerkaas oo lugta ha lagala bixiyo gacmaha lagu jiro ha lagala baxo taasi waa mid labaad maanta 17 oday dhaqameed oo waaska guud ee beesha Jibriil oo Bokor uu ku jiro ayaa lagu xiray magaalada Wajaale gobolka Gabiley ayaa lagu xarunta gobolka Gabiley baa lagu xiray oo ay ku xiran yihiin ilaa hadda saaka ayaa xabsiga loo taxaabay xilli odayaashu ay shir iskugu yimaadeen isxog waraysiya ayna doonayeen inay warbaahinta kula hadlaan oo aragtidooda ay ka dhiibtaan qorshe xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro ay maalmihii ugu dambeeyay ay waday oo la xiriiray in banka weyn ee Wajaale mashaariic laga sameeyo oo shirkadiyo kambaniyo lagu wareejiyo dawladdu ay maamulayso dhulkan banka Wajaale la leeyahay waa dhul Soomaalidu markay ay meel bay kala degtaa oo qolo walba meel bay degtaa qolo walba Soomaalidu meesha ay degto dhul beereed bay leedahay iyadoo ay leedahay dhul beereedkaas laba siyaabay Soomaalidu samaysaa ma aha dawo Soomaaliya oo kaliya ilaa iyo Djibouti ilaa iyo Ethiopia ilaa iyo meesha la yiraahdo Sowad Kenya Soomaalida degan qaab la sameeyaa jira oo inta badan la sameeyo markii hay'ad ama company loo helo dhul beereedkaas inay wax soo saar ka sameeyaan waxa la sameeyaa dadkii lahaaba loo yeeraa waa la qaybiyaa beer baa loo qaybiyaa ama waxa weeye siday u kala lahaayeen ayaa loo fiiriyaa waa loogu qoraa mashruuc baa looga sameeyaa waa la garab istaagaa mashruucaas wixii ka soo baxay hadana laga iibsadaa oo waxa weeye qiimo looga celiyaa si bulshadu ay ugu noolaato oo kor ugu soo kacdo qayb kalena waa la sameeyaa oo hadii dhulku maamulka joogay ka maarmi waayo dadkii deganaaba loo yeeraa waa laga iibiyaa dan guud baa marka laga dhigaa oo waxa la dhahaa wax raasamaal oo dadka dhan afaco oo idinku ku jirtaan ayaa laga sameeyay oo marka dhaqaale fara badan ayaa looga celiyaa oo ku filan oo dadkaas ay ku shaqaysan karaan oo wax ku qabsan karaan labada wado ayaa Soomaalida ku aqaan laakiin qaab ka duwan bay xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro sameeyay waxa la dhulkan
kambani baan ku wareejinay mashruuciyo mashaariicyaa laga samaynayaa marka iskaga baxa idinku iskaga tago de dhulkan ka awow weliba dhulkaas waa dhul dadka waxa weeye la yidhaahdo maguurtada dad aan guurin makacdo raalli hada makacdo af soomaali lagu dhaho aan guurin baa halkaa degan waa dhul beereed kaab dhowr 100 oo sano meesha dadka way deganayeen nin uusan awowgii 5 awow 6 awow amusan meeshan ku xabaalay way yartahay odayaashu marka waxay kasoo horjeedsadeen arrintaasi oo ay diideen waaskii iyo odayaashii dhannaaba intii la qaaday baa jeelka lagu ururiyey oo la yidhi maanayaad naga daba hadlaysaan jamhuuriyadda miyaad naga daba hadlaysaan ninka ciraha wuxuu la soo baxay bahal seefa oo aan caadi ahayn ayuu la soo baxay waayahay odayaasha way xidhan yihiin banka wajaale maxaad uga hadasheen annagaale maxaad u leedihiin mashruuca maxaad u hor istaagteen ayay u xidhan yihiin lama garanayo waxa ka dhalan waa oday dhaqameed 17 oday dhaqameeda yaa jeelka ku jira warbaahinta Soomaaliland way cabsanayaan ma tabin karaan waad soo ogaan kartaan qaar yar oo privacy wax yar yaa oo dibadda ku sugan baa wax turturanaya marka kuwa gudaha way cabsanayaan marka dabcan xogta iyadana waa xog goordhow isoo gaadhay cira marka la fiiriyo 13 bilood buu horta joogaa 13 bilood oo uu joogo bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuu dhaafay maba jiraba musabbixi baa waaga hor waxa la dhahay ilaahuna dhaafi in cira la yiraahdo oo xisbiga wadaniya ayaa bedeli doono nin waxa weeye bulshaawiya nin waxa weeye social nin waxa weeye bulshada rayidka la soo shaqeeyay waa nin aqoon-yahana waa oday waaye araga uu ka fiicnaan doona musabbix xagee xataa maraysaa xaalku xagee maraya wariyaasha la xidhay waa 13 bilood 37 wariye ilaahay baa inuu dhariyay 37 wariye ma dhihi karnaa habar jeclay haayeen waxaan ka wada habar awal bay haayeen oo musabbixi bay u hilinayeen oo la socdeenoo sida awgeed loo xidhay ma dhihi karnaa maya lama dhihi karo 37 wariye oo qoys walba leh oo samarool leh oo waxa weeye beelaha isaaq oo dhan leh oo gabooye leh oo ciise leh oo gurgure leh oo waxa weeye qabiil walba leh ayaa la xidhay waa 37 wariye 17 nabadoonna hadda wada aragtaan 17 nabadoon hadda wada ujeedaanba way xidhan yihiin hadda garabta kulley inay soo baxaan waa suurtagal warbaahinta ay la hadlaan waa wad arki doontaanba media ku arki doontaan xarigu marka ciro iyo marka la fiiriyo musabbixi 7 sano musabbixi iyo 13 bilood ee ciro 13 bilood ee cira ka xarig badan ka cuburi badan ka caga jugleen badan waxaad moodaa marka in uu systemkii si baaba'ay Soomaaliland oo meel xun ku sii dhaadhacayaad moodaa meel xun inuu ku sii dhaadhacayo odayaashu waa xidhan yihiin waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa hadduu alla idmo